السلام عليكم أصحابتي قالقة كسو دباد يوتيوب جانال كينا ومركل إي موقع عصب فلنا هدي أد يوتيوب جانال كي ku cusubtaan ugu soo biiro kamid noqo asxaabteeda hadii aad horey noola joogtana waan kaaga mahadcelinayaa maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago cabitaan hooyada uurka leh haday isticmaasho ee isku shiidato energy iyo fitamiino iyo nafaqo intaba ay ka helayso wuxuu ka kooban yahay wax yar oo fudud oo hooyo walba ay heli karto ama Soomaaliya ha joogto ama wadan kale ha joogto hadii aad tahay hooyo uur leh mar walba waa muhiim inaad qaadato waxyaabo nafaqo leh waxyaabo energy ah ka helaysid waayo tabar yari ayaa dareemaysaa mar walba cabitaanada aad qaadanayso waa inay noqdaan kuwa calooshana ku socodsiinayo sidoo kale dhiigaaga ama HB-gaaga kor u soo qaadayo mar walbana nafaqo fiican aad ka helaysid soo marba fruitka ina shiidatay waa iska fiican tahay oo cabitaan ahaan aad cabtid juice kan hadaan hore u tijaabinin tijaabi wuxuu ka kooban yahay baytaraaf waxa kale ku jira cambo iyo carrot saddexdaas uu ka kooban yahay meesha cambaha uga daray tufaax waa ku bedelan kartaa laakiin cambaha waxaan u doortay macaan oo ka dhigaya hooyooyinka qaar waxaa jira cambaha markay cabaan gaas uu ku kicinayo hooyada uur markay leedahay gaas fara badan ay isku arkaysaa bag inuu huraayo soo hadii gaas aad ku qabtid waxaa ku bedelan kartaa tufaaxa intaan aad u jeedaan ayaan isku darayaa waana isku shiidayaa haduu Ilaahay yiraahdo Ramadaan ayaa soo socdo hadaa uur leedahay oo aad rabtid inaad soontid oo awoodaada aad u arki kartid inaad soomi kartid waxa waaye fruitiska iyo cabitaanada aad u badso qasabna maaha intaan ani hadda aan isku shiiday inaad isku shiidid waxaa isticmaali kartaa cambo oo kaliya qara ayaa shiidan kartaa balbeelma ayaa isticmaali kartaa muhiimada waa inaad isticmaasho cabitaan oo nafaqo leh fitamiino iyo energy ah ka helaysid soo cabitaankan waxyaabaha uu ku fiican yahay ama nafaqooyinka aad ka helaysid waxa kamid ah midka noocan oo aan hadda aan sameeynayo waxa ku jirta maadada u fiican hooyada marka ay uurka leedahay ee loo yaqaan folic acid ama vitamin B9 ayaa ku jiro sidoo kale qolof ay leedahay oo hadii aad galaaska cabti maalintii calooshaada laga yaabo inay fadhiisato hadii caloosha ay adag tahay hooyada xanuun ay dareemaysaa oo waliba qaybta hoose ee mindhiciraha ah soo cabitaankan hadaa galaaska cabti caloosha uu ku socodsiinaya waxa kale oo ku jiro fitamiino badan oo uurjiifkana u fiican nafaqo fara badan oo ka helayo hadii dhiigaaga uu yar yahay HB-gaaga normalka hadii xoogaa uu ka hooseeyo kor ayuu u soo qaadayaa oo dhiig yaridu uu fiican yahay sidoo kale wuxuu qayb ka qaataa in qulqulka dhiigga uu si fiican u shaqeeyo baytaraafku wuxuu kale u fiican yahay wadna xanuunka hadii wadna xanuun zaid aad dareemaysid asagana waa uu fiican yahay ha iska badinin oo xaddi badan ha ka qaadanin maalintii galaas ka badan ha cabin soo tijaabi waxaad ka heli doontaa haduu Ilaahay yiraahdo intaas hadda aan soo sheegay iyo in kale ka badanba oo faa'iido ayaad ka helaysaa soo asaga dhan sidaan ayaan u soo sameeyay hadda waa aan shiidayaa markii aan soo shiiday kadibna meeshaan ayaan ku soo shubaa miirayaa ani waxaan jeclaa laba mar inaan miiro hadda markaan waa markii koowaad aan miirayo mar labaad ayaan miiray laakiin ma aanan duubin soo sidaan ayaan u soo sameeyay asaga dhan dadka qaar bay taraafka markay shiidaan way kariyaan kadib ayay shiidaan laakiin ani isma dhibo waxa waaye asoosiisa ayaan jarjartay waana shiidaa lama joorabo isku midkii kaliya marka kariso ku jilcaaya xoogaa ugu dambeyn san quruxda badan ayuu ku soo baxay fadlan muuqaalkeen hadii aad ka heshay like inoo saar hadii aad janaalkayga ku cusubtahay ugu soo biir oo kamid noqo asxaabteeda muuqaalada noocan oo hooyooyinka uurka leh faa'iido u lehna insha Allah ta'ala waa soo badin doonaa haduu Ilaahay yiraahdo